بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada walaalayaal macadka Spain waa uga barateen casharo la xiriira maamulka maareynta dhaqaalaha logistikada iyo akhbaaraadka la xiriira dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha maanta insha Allah waxaan ku soo qaadan doonaa ciwaan yar oo muhiim ah dhammaan ganacsiga iyo wax kasta oo shaqeeya ama dawlad ha ahaadaan ama dad aan dawlad ahayn ha ahaadaan ama ganacsi ha ahaadaan ama public ha ahaadaan ama private ha ahaadaan intaba oo ah macnaheedu uu yahay wada shaqeynta shaqaalaha ama wax afka qalaad lagu yiraahdo teamwork يعني إن قاب تيم وقع لا شقيه مركا إن شاء الله هدالي لهذا ما أنت وحن قاعد دونا وذا شقين محلها هرت تيم وقع محلها يعني وحيالها بدن و سفوين كلا جربوا يقاب كوياي وحيالها صورن مركا وذا شقين تاس oo shaqaalaha ay wada shaqeynayaan yani muhiimad gooni ah ay u leedahay guuleysiga shirkadda muhiimadda ay leedahay qaabka uu yahay shuruudaha laga rabo maxay tahay waxyaalahaas oo dhan wax waaye si fiican uga hadli doonaa marka insha Allah waxaan sameyn doonaa marka وتعرفي دونا قيحتان كيسا أيان سمي دونا كبعدنا 10 ضمب أو امتحانات أيان كشيء دونا أو لحريرة قابكو يهاي أو سيد سوء حرينين تيمكم مركو effective يهاي وعلى ساعة هذا دونا إن شاء الله أركا وحنسمينا هرتوا محي عندنا هنا تيم وورك أفكار على الوضع وحنكر هنا ومحي ولا شقين شقالة shaqaalo inay wada shaqeeyaan waa maxay eedana ayaan dhihi doonaa yaa la yiraahdo marka wada shaqeyn koox yani waxa lagu qeexaa wada qabasho shaqo si loo gaaro gool cayiman yani gool cayiman si loo gaaro ayaa la yiraahdaa horta wada shaqeyn shaqo ayaa la yiraahdaa macnaha waxa waaye team work markay imaanayso waa dad wada shaqeynaya oo hal ujeedo la wada leh hal يعني ujeedo wada leh meel la yaqaano wada taagan oo meel wada yaqaanana wada socda markaas waxa wada shaqeyn yani way jirtaa iyo ma jirto ma lagu murmaayo adduunka hadda maanta waa la isku waafaqsan yahay dhammaan adduunka waxa la isku raacsan yahay in teamwork qaab loo shaqeeyo shaqo kasta oo maanta adduunka taala waxay u baahan tahay saddex shay ay u baahan tahay wax waaye waa shaqadaas in daba taagnaasho ay leedahay macnaha wax joogta oo daba taagnaasho shaqadaas maanta oo dhan inaan laga daalin macnaha iyo waxay kale u baahan tahay teamwork in rag team lagu wada shaqeeyo tusaale ahaan qofkan hadduu inta ka soo qabto waxaa la rabaa cali inuu waxa ka soo qabto cali hadduu waxa ka soo qabto waxaa la rabaa xuseen inuu inta ka qabto hadhow markaas la isku keeno oo goolkaas la wada bursado la rabaa oo nin walba meesha uu ka leeyahay oo ka keeno tusaale ahaan shirkada laga rabaa inay gaarto saleskeeda meel sare inay gaarto waxaa laga rabaa department jaashi dhamaay oo halka saleska hostagay inay halka ahay ama saleska oo la shaqeeyo inay waxa la rabaa shaqeeyaan tusaale ahaan kii engineerka si fiican u shaqeeyo product iyo qaabka iyo wixii soo saara oo naqshadeelaha kii halkii ahay cabashada macaamiisha iyo wixii qaabili lahaa sababtoo qofka hadii markaas koowaad aan la qancinin waxa imaanayso inuusan mar labaad soo laaban wax gadanin marka sales si kor loo qaado qofka cabasho qabo waa in la qanciyaa waxa kale la sameeynaa kii macnaha waxa loo tagaa finance oo lacagta xisaabi lahaa asagana waa inuu wax ku soo darsadaa oo shaqada fikir soo darsadaa waxa kale la rajeynaa kii alaabaha soo gadi lahaa iyo saleska laftirkiisa laga shaqeeyaa wixii
wixii lagu socodsiin lahaa sales yani waxa lahaa supply chain ka lahaa kii wax soo market gareynaya waxa la rabaa marka intaasoo waaxood inay wada shaqeeyaan si teamwork si loo gaaro goolka ahaa in sales fiican la soo saaro teamwork marka labadan eray u baahan yahay waxa la yiraahdo effectiveness iyo efficiency oo u baahan yahay teamka labadaas eray u baahan yahay waa muhiim effectiveness maxaa waa hadda ka hor 10 hore aan ku sharxay waa doing the right thing efficiency maxaa waa doing things right shay'aasha kan resource-ga la xiriirta tanna waxay la xiriirtaa tilaabadii la qaaday ay la xiriirtaa marka waxa waaye mar walba waxa laga fikiraa in tilaabo sax la qaaday iyo in sida sax ah shaqadan loo qabto yani tan waa go'aanka koowaad tan waxa waaye go'aankaas la gaaray sida loo maray waa qaabkee ay noqonaysaa marka insha Allah haddii la yiraahdo casharkeena intaas ku soo gabagabeynaa wixii cabashaa iyo wixii buugta iyo waxa la xiriirina nagala macaamilay insha Allah markaas nagala soo xiriiraan waa maasantiin